hambali Real Madrid fans waxaa maqli jiray xilliyada caruurta labo cilmi marka isku booteeyaan oo meel fagaar marka la isku helo xariifa kala caad loo dadansanaan waxaa lahaa ninkii booteeyo banaan weyn waa kana micnaha waxa waa dhig ku hadal waay adaamaadna booteeynaysa barxaddeeda taagay cariskii celi waa micnaha hadda sheekadaas waxaa lagu sameeyey ninkii Yamal ahaa ciyaarta ka hor media la iskugu wacday waxa waa falanqeena bala galay waa kulan ila kalaasiga ku soo wajahan falanqeeno iska galay Real Madrid inuu wax ka sheego ciyaartooyda inuu ku mashquulo saxaafadii dhan diirada waxay saareen Barcelona qof walba oo ciyaar waqti badan u soo joogo waa uu filay Real Madrid kulanka inay badin doonto mar haddii adiga saxaafadda isaas ay ku hadal hayaan ciyaartooyda micnaha ma aan robot ma qalbi leeyihiin dareen ay leeyihiin saameyn ay ku yeelanay tiyana dhacday Real Madrid caawa dareemay markay saas ciyaartu bilaabatay koox inay tahay micnaha inay guul ka go'an tahay u soo baxday waxaan guul ahayn aysan ku qancinin waa dareemay kulan waxay ciyaareen physical ah Barcelona players cagta loo saaray cal ku bataabta la car ku bataabta kaliya Barcelona waxa kubad loo ogolaanay markay aagooda joogaan difaacyada isku celcelinaya idinku isku ceeshta Allah isku ceeshta laakiin waa kana carwa kana diirinta soo dhaafa markay dhankan soo dhaafaan waa kana Real Madrid waxa arkay micnaha dad waraawow qawa camal ciyaarta markay saas u bilaabataybo ninkii Mbappe aha wuxuu dhaliyay taas gool way dhaaftay offside laga dhahay gool inaba aan caadi ahayn ay ahayd gool la qiimeyn karo u tartami kartay xitaa Busquets wuu degsaday wuu isfarlaabay wuu bariis koo dhahay xariifkii seesne wax kama qaban kariyo dhaatan VAR la diiday waa intaan jada ma arag anjadaan intaas VAR wax loo iskaaga soo qabto offside meesha kuma sii nagaanin Barcelona 10 daqiiqo ugu horeyso kaliya iswalwaaleen wixii ka dambeeyana intaan gool ka dhalanin caadi loo degsaday heestii dajiye xasan aadana loo daaraan ku dhahay hal meel micnaha waxay sameeyaan alfaham waay Mbappe goolka lagu shubay way bareejayeen waa lagu celiyay haddana rigoore hena Real Madrid iska sii khasaariyeen goolalka fursadaha soo mareen way ka faa'iideysan waayeen alxaasil kulanka Real Madrid dhan walba isku soo diyaaraday Yamal bootadiisa koronka la yimid hal xabuutu si waay waxa lagu kalifay horta bandhiga kulankan oo qaad wiligiis ma iloobi doono wiligiis uu ka sheekeyn doonaa cashirna tan ha u noqoto ciyaarta ka hor inaan la booteen hala baro ama koox weyn u bax ama koox yar u bax kulan ka hor lama bootee warniyo cunuga aan waxaan fahmi la ahay war fiiri xitaa ma aragteen kuwii hor meel iska dhig Messi Ronaldo meel dhig waa dad micnaha dhan walba u diyaarsanay ahayn dadkaas dhan maskixiin u diyaarsanaa kubad ahaan u diyaarsanay ahaayeen meel iska dhig Harry Kane wiliga markay soo saxaafada falgalay ma aragteen maxamed saalax soo saxaafada falgalay ma aragteen Mbappe waa kana kulan walba top goolaha dhaliya waqtigiisii Paris iyo waqtigiisii Real Madrid hadda ciyaaryahan micna adagta ina goolka celisad waay ma aragta asagoo saxaafada la falgalay ama koox hebel ku dhagan ama ciyaaryahan ku dhagan ma aragtay ma arkaysid haalan ma aragtay ciyaaryahanka professional markuu yahay noocaas lagu gartaa cunugan okay wuu bada yar yahay asiga micnaha ma laha miya aabay micnaha ku la taliyaal ma laha miya mar walba waxaad arkaysaa isbuuc walba asaa wax saaran isbuuc walba inta oo social media ku mashquulsan yahay wax qabadkiisa garoonka isku mudhawo waa nin dhan hadda xulk markuu ciyaara daraad Spain 6 gool ay dhaliyeen kii Arsenal dhaxda ugu ciyaaray ka saameyn badnaa ka gool badnaa 6daas gool ay dhaliyeen hal xabo kuma leeyahay seasonka hore horyaalka waxa waaye 6 gool miyo ka dhaliyay marka waxa laga rabaa tay ahaan uu leeyahay inuu horumariyo dhankan goolish inuu hore laakiin mar walba ay saxaafadda markaad ku soo muuqatid meel aad micnaha gaaraysid malahan Barcelona marka waxaan leeyahay reer Barcelona dadka meesha askeena cunugan afdheerkan haddii aadan xakameenin waxaa shaki ku jirin waxyaabo badan dartiisa ku way doontaan waxyaabo badan dartiisa ku way doontaan kooxihii heer waxay idin bilaawayaan Barcelona micnaha u buuxoona marka loo in xamaasad gooni ay gasho bartilmaameed idin ka dhigtaan tii caaw dhacday oo kale ciyaaryahan walba Real Madrid intuu ku ciyaaray inta go'nay inta kubaddo Yamal taabtaba baf ala siinay cagta loo saaray bandhig ugu fiican oo ciyaarkiisma waxay ahayd hadday xasuusataan injury time ka 89 mesiti 7 meelaha sameeyay kubaddii uu kun dhaxwadku u saaray wax kale oo ciyaarta qabtay iyo sheegay baas walba oo bixiyo Real Madrid gacanta ku haysatay isku day walba gambis oo sameeyo waa laga haystay cross walba soo qaado goolaha Real Madrid dhabsiisanay wax uu ka hayay male war labada gool haya ka saameyn badnaayeen labada gool haya aga saameyn badnaay ciyaaryahankii ugu xumaa bandhig El Clasico aan ku daawado noqday wax oo garoon ka hayay male marka bootadaada meeshaas ku gaarsiisay hor u baxaan leenahay marka hambali Real Madrid ilaa hadda waxa waaye Xavi Alonso tartan ama tijaabo rasmi marweebe ilaa hadda koox iska tacbaan ah iyo koox level kooda galab u buuxoyaa marka hambali aan leeyahay muhiimadda waxay tahay 5 dhibcood inay horyaalka ku qabsadeen kulanku weyn ee badiyeen hambali aan leeyahay yani 11 kooxda Arsenal sanadkan cajiib waay xaqiiqdii cajiib waay Arsenal in laga badi iska dhaafay in goolka dhalay xitaa way adag tahay Arsenal sanadka meel ay u socota wax badan oo lagu soo maadeystay wax badan sabraan sadkiisa helaa maqla jirtay waay marka
sabraa sidkiisoo helaa tii hadda socoto 5 kulan xiriir Arsenal shabaqooda gool waa la taabsiin lahaa in laga badiyo meel iska badhig Arsenal waxay taagan yihiin inaan naga badisaan naga daayay carwa kaas xitaa gool naga dhaliyay carwa kaas gool naga dhaliyay kooxda daafaca ka fiican male Arsenal ciyaaryahan hadduu ka maqnaado lama tawaaye mid kale booskiisa joogo marka Arteta koox dhan walba ka diyaarsan oo soo dhistay waxaa nasiib lama dhihi karo awood muuqato waa nasiib waa nasiib hadda meelaha la taagan tahay caadifad iyo wax lay ku heeday bis micnaha rag iska celis baashan awood muuqato waa Arsenal sanadkan meel ay u socdaan hadda koox la tartami karta malahan Man City dadka micnaha hadda intay soo laba kaclaysa haddana baxday noocaan ay noqdeen in 3 kulan xiriir aad badisid kadibna micnaha kun baraaji agashadna laga badiyo nooc hore lagu tartan ma ahane waa nooc top 4 lagu difaacdo waa bandhigaas aad aragtid koox bada aragtid inay 3 kulan badiso kulanka xiga haddana laga badiyo kulanka xigana baraaji gasho top 4 lu hamigooda yahay koox meel u socod waa la yaqaan kulamo xiriir badanaya marka jag la siiyo haddana meeshay ka sii qabanay laakiin Man City waa aragteen marka meel u socdaa male maantana waa kaas waa la tumay xal Liverpool waa la tumay meeshay ka faa'iideysan lahaayeen way banjareen hadda marka Arsenal hadda wax la tartami kara male Manchester United hadda waa kan isbuucii hadii la soo riixi karo hal iswaad haystaan Manchester United hadda la dhihi kara iyada hadda ugu roon ayagana waxa loogu baahan yahay badhigood inay joogtayaan isbuucii hal toddobaad ay haystaan marka alxaasil Arsenal sanadkan meel u socdaan waxay sabraanbo oo lagu soo maadeysto sanad qurux badan idinku soo wajahan waa haddii aysan dhicin musiibo wixii musiibo ma sheegi kare laakiin badhig hadda markii la qiimeeyo qaabka ku socotaan koox hadda micnaha koox walbo ma jecla in Arsenal ay ka hortagto taas xaqiiq ah Arsenal qaabka ku socoto koox adiga aad taageertid in Arsenal waqtigan wajahdo micnaha ma jeclaan lahayn koox baraankeeda ku dhacday waaye ma sheegi karo inay musiibo ku dhacdo dhaawacay inay galaan waa sida kaliya Arsenal ay ku wareeri karto laakiin hadda dhan walba Arsenal u diyaarsan tahay marka hambaliyaan leeyahay inta badisay hambaliyo inta laga badiyayna ma gudbayaalaatihiin aan ku qosolno wax kale aan leenahay malahan anigana isbuucan caadi ugu fadhisaa jabigeyga caadi ugu saxan yahay ku dhahay reer xuquuq la dhan isbuuca wana kala aamusiyay hambaliyaan leeyahay Real Madrid hambaliyaan leeyahay tii xalay Nottingham Forest aan dhahay tii sheeg Brentford اسبوعان dadka madax noo dajiyay dhan Sunderland waa mahadsantiin buuq badan anaga ilaaliseen waa mahadsantiin intii badisayna hambaliyaan leeyahay waa idin salaama